waryaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. war muhiima baan ii sheegayaa waxaa laalay wixii arday sababa ay dadka jireen iyo gudaha Itoobiya ee ummadda Soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa dhamaantood in ay kala soo baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan. maanta garoomada arday sababa loo diiday Soomaalida ka baxaan baasaboorada inay qaayam garan safiisaya loogu dhufto meel walba waa loo diiday. dadkii walaas ku go'doonsan ka soo qaylinayaan kulli anaka eheladaydii bartaas ku xidhan laga soo ay ka soo qaylinayaan meel ay ka baxaan wallahi ma hayaan bay yiraahdeen noo soo duceeyay bay leeyihiin wadooyinka haday soo mar lahaayeen oo gawaari soo raaci lahaayeen ama garanaysa jidka orama u taagan qof walba la deganaysa waxaa caawa looga siinayaa dhamaantiin message-ka cid kasta gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed waxaa loo sheegayaa dhamaantood meel kasta joogaan khaasatan meesha la yiraahdo arday sababa iyo gudaha dhulka Oromadu degto inay sida ugu dhaqsiyaha badan ilaa bari subax ay kala soo baxaan. Oromadii way gadooday baa la yiri dawladooduna dadkii way u diiday inay magaranaysaa in out iyo ay ugu dhuftaan magaranaysaa baasaboorka ay out ugu dhuftaan magaranaysaa way u diideen magaranaysaa bixid dalku soo gelisna ma ogola bixidna waa u diideen Soomaalidu waa la gadoomiyay dadka arday sababa soo qaylinay waxay leeyihiin wana loo diiday in magaranaysaa aanu ka baxno wadankii diyaarad Soomaaliya u baxsana wana loo diiday waxa weeyaan meesha wadanka waa kala xidhmay ilaa bari xaalad degdeg ah lagu jira waxa laga baqayaa in xansuuq iyo dagaal ka dhex bilowdo. Soomaalidii boosas ku dhowdo khalad bay sameeyeen Oromay soo sawireen ay leynayaan bay soo sawireen dir dhaba guriyihii baa la iska gubayaa xaaladeeduna waa kacsan tahay bari way isbedelaysaa alliina haduu alla yaa wixii arday sababa dadka joogow hadeer bacaawo u dira codkayga ha lagala soo baxo